Calaamada Blue Tick Verification Badge ee lagu helo Facebook page waxa ay leedahay faa'iidooyin badan kuwaasi oo muhiim u ah sumcadda iyo kalsoonida qofka ama shirkadda isticmaalaysa. Haddaba, calaamadan si aad u dalbato waxaad ugu horreyn geli doontaa profile-ka page-ka aad doonayso in aad verify aad ku samayso ama aad calaamada Blue Tick aad u samayso. Waxaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcood ee halkan ka muuqda, kadibna waxaad odhanaysaa edit. xogta halkan ka soo muuqata sida profile-ka, cover photo-ha dhammaan waa inay ku dhameystiran yihiin oo aanay waxba ka maqnayn. Bio-ga waa inaad isagana buuxisaa oo aad gelisaa wixii details-ah. Sidoo kale details-ka halkan ka muuqda sida page type-ka, address-ka, phone-ka, email-ka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee halkan ka soo muuqda dhammaan waa inay iyaguna buuxaan oo ay dhammaystirmaan. Sidoo kale linkiska ayaad ku dhufan doontaa halkan ka soo muuqda links add markaad tiraahdo. Halkan waxaad gelin doontaa social media kale ee aad leedahay. Haddii aad leedahay Instagram, Threads, Twitter, YouTube, TikTok, halkan aad dhammaan soo gelin doontaa. waxaad soo gelin doontaa linkiskooda. Halkan hoose waxaad gelin doontaa website-ka haddii aad leedahay website leedahay. Haddii kalena waa iska dhaafi doontaa. ugu dambeyn waxaad iman doontaa halkan ay ku qoran tahay get meta verified, kadibna waxaad ku dhufan doontaa sign up now. waxaa kuu soo bixi doonaa join meta verified waiting list, inaad ku biirto dadka sugaya in loo verify gareeyo metaha. ma garanaysaa shirkaddan meta oo waxaa lagu verify garan doonaa WhatsApp nambarkaaga kugu xidhan page-ka, iyo sidoo kale waxaa lagu verify garan doonaa page-kaaga laftigiisa oo lagu saari doono calaamada buluuga ah. intaa kadib waxaa odhan doontaa join the waiting list. odayaal soo aragtaan imika waxaynu codsannay Blue Tick aynu codsannay. waxaynu eegi doonaa insha Allah xilliga ugu horeysa in loo soo jawaabi doono. adiguna saasi laga samayn kartaa. haddaba halkan waxaan idinku haynaa 6 qodob oo ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee laga heli karo calaamadani buluuga ah. haddaba haddii muuqaalkan ay ku soo gaadho fadlan like noo saar, mahadsanid. qodobka koowaad, sumcad iyo aaminaad. Blue Tick wuxuu caddaynayaa in page-kaagu yahay mid rasmi ah oo sax ah, gaar ahaan haddii aad tahay qof caan ah, shirkad ama hay-ad. dadka isticmaalaa waxay ku sii kalsoonaanayaan waxyaabaha aad soo geliso. qodobka labaad, helidda dad badan reach. Facebook waxay door bidaysaa in ay muujiyaan contentiska page-ka verified-ka ah, kaasi oo ka dhigan in qoraalada ay gaadhaan dad aad u fara badan. sidoo kale waxay kaa caawinaysaa in dad badan oo cusub ay page-kaaga ay arkaan oo ay ku soo xidhmaan. qodobka saddexaad, ka difaacid been abuur ah. waxaa jira dad sameeya pages ama profiles been abuur ah oo magaca dad kale ku shaqaysta. Blue Tick wuxuu xaqiijinayaa inaad tahay qofka saxda ah, taasi oo ka hortagaysa marar-habaabin iyo been abuurasho fara badan. qodobka afraad, waqti degdeg ah oo jawaab helid. dadka arkaya in page-kaagu yahay verified waxay kugu soo xidhmi karaan si degdeg ah, waayo waxay ogyihiin inaad tahay qof rasmi ah. qodobka lixaad, wanaajinta suuqgeynta marketinga. pages-ka leh Blue Tick waxay leeyihiin kalsooni dheeri ah, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in macaamiisha ama taageerayaasha ay ka iibsadaan alaabtaada ama adeegyadaada iyagoo aan shaki ka qabin. qodobka lixaad, xilliga raadinta waxay ka soo muuqanayaan page-kaagu kaalmaha ugu horeeya, search ranking waxaa loo yaqaano. pages-ka verified-kii wuxuu ku soo baxaa kaalmaha sare marka dadka raadinayaan magacyada la xiriira adiga ama ganacsigaaga. haddii aad leedahay shirkad ganacsi ama aad tahay qof caan ah, calaamada Blue Tick waa tallaabo muhiim ah oo kor u qaadaysa magaca iyo kalsoonidaada. haddaba
muuqaalkan haddii uu ku soo gaadho fadlan like saar siina sheer gare mahadsanid. haddaba si aad u hesho calaamadda blue tick ee Facebook waa inaad buuxiso shuruudo gaar ah oo Facebook dejisay si loo xaqiijiyo in page-kaaga ama profile-kaagu uu qalmo shuruudahaasi. haddaba waxaa ka mid ah qodobka koowaad inaad tahay qof rasmi ah oo aan been abuur ahayn. waa inaad tahay qof aan ah hay-ad ama shirkad leh sumcad iyo aqoonsi rasmi ah. haddii aad tahay qof caadi ah waxaad kaan doontaa in aad hesho calaamadda ilaa aad leedahay saameyn weyn ama aad tahay qof si gaar ah loo garanayo. qodobka labaad aqoonsi sax ah identity verification. waa inaad Facebook u gudbiso dokumentiyada caddeeya aqoonsiga sida haddii aad tahay qof waxaad gudbi doontaa baasaboor ID card ama shahaado kale oo rasmi ah. haddii aad tahay shirkadda dokumentiskaaga ganacsiga sida laysanka ganacsiga biilka shirkadda ama shahaadada diiwaangelinta ayaad gudbi doontaa. qodobka saddexaad magac iyo macluumaad sax ah. magaca page-ka ama profile-kaaga waa inuu yahay mid rasmi ah oo aan noqonin mid marin habaabin ama khaldan. waa in macluumaadkaaga bio ee profile-kaaga page-ka uu cad yahay kuna jiro sharaxaad sax ah oo ku saabsan qofka ama hay-adda aad matalayso. qodobka afraad in page-ka ama profile-ka si firfircoon loo adeegsado. waa in page-kaagu ama profile-kaagu leeyahay nuqul tayo leh sida qoraallo sawirro iyo muuqaallo si joogto ah loo soo geliyo. waa inuu leeyahay dad ku filan oo raacsan oo followers ah. Facebook kama dhigo mid rasmi ah tirada saxda ah ee raacayaasha, laakiin badanaa tiradu waa ay noqotaa mid muuqata oo sarreysa. qodobka shanaad sumcad iyo caadhigo notability. waa inaad tahay qof shirkad ama hay-ad caan ah oo laga yaqaano meel gaar ah ama caalamka oo dhan. Facebook waxa uu eegayaa wararka ku saabsan adiga ama hay-addaada oo laga daabacay ilaha warbaahinta rasmiga ah. qodobka lixaad ka hortagga shuruudaha mamnuuca. waa inaanu ku jirin wax ku saabsan marhabaabin khaladaad ogeed ama xadgudub ka dhan ah siyaasadaha Facebook. waa inaanu jirin falalka